maxamed jaamac abgaal oo ka mid ah siyaasiyiinta waaweyn ee gobolka awdal kana tirsan xisbiga mucaaradka ee waddani ayaa ka hadlay arrinta heshiiska Itoobiya iyo Somaliland. waxa uu madaxweyne Biixi uga digay in tallaabooyinka aadista Itoobiya ama tagitaanka heshiiska degdega ah ee Itoobiya inuu dib uga joogsado. arrinka Itoobiya madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi maanta la bariyay badayada Itoobiya waxay rabtaa Soomaaliya ay heshiis la gasho oo ay bad kala yeeshaan laakiin inaga cidhiidhiyeen oo anaga bad haynaa hooya madaxweynaha waxa sheegay inuu doonayo inuu iftiimiyo wanoo inamada dhalinyarta reer awdal habeen iyo maalin Soomaali bay difaacaan waxay ka difaacayaan waxa leeyahay isaaq baa iskuubaystay iska xoreeya macnaheedu waxa weeye Itoobiya holka soo qaata Soomaali oo dhan baa Itoobiya hubu doonata isirka Soomaali dabadeedna reerkii xigay bay ku garaacday calan gooni samaysatay taasana lagu dulmiyo ceebaarkeeni haddaad Muuse Biixi hadaba loogu yeedho si annagu aanu diidayna inaan hubka soo qaadano haddaad keento lug haya oo Itoobiya lug haya soo degto 19 calan baynu kala samaysanaa shaqadeedii Itoobiya qabsan doontaa awdal iyo Hargeysa calan kala qaadan doonta sida Kismaayo iyo Baydhabo kala haystaan sida meesha la yiraahdo Muqdisho iyo beledweyne kala haystaan sida beledweyne iyo Garowe kala haystaan oo intaba Itoobiya samaysay Soomaali isirkeedii waxa calanka u kala sameeyay ay Soomaali ku faanaysa xorbaan hay ku faanaysa maanta ee inamadiyadu ka xishoonayaan annaguba waa Itoobiya hubka soo qaata oo calan gooni samaysay reerkeedu ku xigada ku laaya intaasna hor taagan hadday kula fududaato adiga maanta Muuse Biixi Cabdi oo Itoobiya loo keento calankay loo sameeyay loo qaadanayna waxaanu idinku ixtiraamnay oo isku raacsanahay Itoobiya wixii hore dib loo geystaan ma tirsanayno adu faan iyo xarriga ku tahay ani khasaariya dhibaatay ku tahay laakiin waa ka xishoonaya waxay Soomaali samaysay baan ka xishoonaya inaan calan gooni loo sameeysan ka xishoonayna inaan hub iyo ciidan ka soo kaxaystaan ka xishoonaya Soomaali intaasay samaysay oo maanta ani ayaga dhigaysaa haddaan intii ka xishooday madaxweyne haddaad adigu noo soo hor kacdood Itoobiya keento badeeni balaayo inoo geyshaa ma jirta Muuse Biixi hayno keen bari ninkii noolow eragaynaadhi yeynaan iskala mari marka si caadi ah shaqada ugu soo noqdo madaxweyne Maxamed Muuse Biixi Cabdi inaan iskaranayna madaxweynaha mid dalkan jooga madaxweynaha Soomaaliland madaxweynaha SNM baad hayd SNM madaxweynayaashii ka soo horeeyay waxa ku jira madaxweyne Taahir Riyaal Kaan LSS Maxamed Siyaad Barruha ummadana xilu dhiibatay sidii hayd buu ugu daadiyay maalintii ay ka codeeyeen sharaf iyo karaamo ugu soo celiyay hanaaye soo ku faraxsan wuxuu ugu daray gacanteeda ku burburimay waxaan dawlad soo dhisay adaa SNM haye war taariikhdaadii iyo wixii aad ku faanaysay carar maalin sharaf iyo hanaaye dadku waxa ku dhigtay sidii ugu soo celiyo sida ninka la yiraahdo Taahir Riyaal Kaan xarraga iyo sharaf dalku joog nabad sugid buu ahaa SNM baa tahay sidaasuu yeelay ummadoo dhan baa u garanaysa oo u garaabaysa oo ku jecel waxaad maanta ka tagtay SNM magaceedii leedahay oo adigu leedahay war waxaad qabatay Soomaaliland baa arkaysa waxaan iga raali ahaada haddana hadalka aad ku leeyay run uu way baan inaan run sheega baa daacad ka ahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin maxamed jaamac abgaal oo mar kale hadalka sii wata waxa uu ka hadlay soo dhaweyntii xildhibaan maxamed abiib bartuu inaan u mahadnaqo oo ay leeyihiin barasaabka gobolka ninka booliiska gobolka jooga oo leeyahay Arraweero oo runtii aan u qirayo inuu xaalad badan oo xun oo dalka soo martay wax kala qabtay lala dejiyay waxa kale oo mahad celinaya oo uu leeyahay wasiirka ganacsiga intaaba runtii waan mahadnaqayaa gobolka markaa waxa kale oo si saa'id ugu mahadnaqayaa dhalinyaradii qabanqaabada soo dhaweynta lahayd oo samaysay wax inoo qarsoonay baxnimo inoo qarsoonay oo reer awdal qarsoonayd ayay runtii soo bandhigeen si casri ah oo qurux badan waxa kale oo mahadnaqayaa tobanaankii kun ee dhalinta soo baxay ee fariintoodiina gudbiyay iyadoo ammaan iyo rirarkii daarina xaafadooda ku noqday aad baan ugu mahadnaqayaa waxay horseedeen inay dhammaatay mar dambe oo la yiraahdo ha soo bixin nabadgelyada wax yeelaysan taasi bay feelkeedii naga soo xireen waan u mahadnaqayaa waxaan kale oo mahadnaqayaa runtii oo le mahadnaq dadka reer Burco wiilal iyo gabdhiyo mas'uuliinba waxa kale oo mahadnaqayaa reer Hargeysa Shariif iyo Sheekh iyo cid walba ka hadashay in lagu gafay cadeeyeen waan u mahad celinaynaa si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa xildhibaanada golaha baarlamaanka oo meel adag iska taagay imikana ka filayo insha Allah sabtida inay dariiqa iyo ku ka qurux badan hawsha ay naga soo afjari doonaan inta ka bacdi maxamed abiib neere baan u dooranaya maxamed abiib xildhibaan wixii culays meesha ka dhacay
tobannaankii kuna dhallinyarta ku soo baxay dee shalay ninkii aad ahayd way kaa duween waxay kaa dhig culays badan bay ku saareen waxaa lagaa rabaa ereygeeda inaad ku hadasho waxaa lagaa rabaa tallaabadeeda inaad ku tallaabsato miisaankaa inaad dareento farxad maaha waa culays lagu saaree culayskaasi adnaa kaa muuqdo intaasaan ku gudbaya arrinkaa cid kastoo garab noogu san waan mahad celinaya dambayntii waxa uu ka hadlay xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliland iyo Djibouti ee midooyinkii ugu dambeeyay xumaaday cilaaqaadkiisu Djibouti dawladnimadeeda iyo maamulka dawladda Soomaaliland ka jirta hadday dhulka hoostiisa isku arkeen iyo hadday cirka dusha isku arkeen iyaga u taalla hawlan gali karaya maaha laakiin waxaan doonayaa inaan iftiimiyo dadka Djibouti haddaad maqasho Djibouti waa awdalna waa Djibouti dadka jooga Djibouti ayuunbaa awdal la jooga oo leh dadka awdal jooga Djibouti la jooga oo leh waxaa la dhahay ciiso gada bursi waan is jiidanaa badiyo bari baan isku qabsanaa waan isxamanaa waan isdilaa sababtu waa maxay waa wax isku anshaha simply waa wax isku anshaha waxa doonaya cid kasta oo Soomaaliya meel kasta ay joogto Soomaaliland taa bilaa biyo hal lagu liqo Djibouti hadday xanuunsato awdal baa laga qufacaya caddaan bilcataan wixii kale dawladnimo siyaasad la isku haysto aanu si everybody uga hadli maayo taana intaas ku dhaafaya Axmed Diriic Iltire wararka warbaahinta SBC Boorama